ما شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. إلهي سبحانه وتعالى هكو بركة سداسي أدو بكرة دكتي ترى إن شاء الله تعالى ولي فتاوى نو بدنيد الشيخ سائل كان كلا كحجة وقبل ويان شيخ waxay leedahay anu horta runtii gabadha waxaad moodaa bariyahan dambe diintiina aad ugu fiican yihiin bas raggii ay siidayaan baad moodaa oo raggii ay gaabiyeen sheekh waxay tiri qof diinta aad iyo aad ugu wanaagsan baan ahay aad iyo aad baan mataqaanaa u ilaaliyaa arkaanul islaamta rukni ka mid ah arkaanul islaam ayaanu ku xadgudubnay bay leedahay qoyskaygu oo waa maxay waa kii sakaatu maalka ahaa waxaad moodaa bay tiri annagoo weliba dhaqaale haysana businessna aan haysano inaad baa ninkayga aan lagu faral yeelin baad moodaa in badan baan kala hadlay wax walba waan sameeyey ruknigaasi meel buu iska dhigay waanan ka daalay bay tiri aniguna ma doonayo bay tiri maxaan ku yidhaha awlaaddaydu in maxaan ku yidhahda ayay xoolaha iyagaasi ay xaaraan isku bedelaan dhibaato aan kala kulanno bal sheekh maxaad kula talin lahayd ruknigaasi sakaatu maalka oo ninkaygu uu ka tallaabsaday wax badanna aan la hadlay taladaasaan doonaynaa bay tiri falyatafadal mashkuuran maajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أرت الله تبارك وتعالى وحنا إذن كبر يا حوله إنه حلال إذن كجد وإذن بركيه هذه سؤال شاسي كلمة وأنا وإلهي درتي تبارك وتعالى هذه أن وحك أن كرده ولالك وحنده لها أرت وإنه أجاده رجني يعني ورجني وين وإلهي تبارك وتعالى أركانتي سشمتها إن الله يلي تبارك جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام 5 أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة مركز الزكاة أرنت وين وآتك عجائب كأوه أي إله هاي صادرات أي إلهي تبارك وتعالى وعيد أذك وكسو أروريي إلهي وحيد تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب العزة سورة التوبة وحكول ياي هو حوله هذا أن ذكر كبحينين ألا وحولي عذاب كل البيليهين weliba maalinta qiyaamo marka la tago xoolahan maanta la aruurinayo intii naarta jahannamo lagu soo kululeeyo ayaa wajiyada iyo dhinacyada iyo dhabarrada ayaa qofka lagaga gubayaa yawma yuhma calayha fi naari jahannam fatukwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum waxaa lagu dhihi yuqaalu lahu waxaa loo dhihi hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun. horta waxaan waa natiijadii wixii aad kaydsateen ee zakada ka bixin weydeen bal dhadhamiya saasuu rabbi ku dhihi doonaa tabaaraka wa tacaala hadday xoolo iyo geel iyo lo iyo ari hadday yihiinna yacni lo'du geelu maalinta ugu kuriska waaweynaa ee ugu xooga badnaa ayaa la keenayaa markaasaa dhulkii baa ninka la dhigayaa markaasaa hasha ugu horraysay ilaa hasha ugu dambaysay ayaa maxaa la yidhahdaa ku istaagaysaa lo'dana geesaheedii iyo qoobabkeedii iyo intaasoo dhan. marka walaalka waxaan leenahay nicmadu alle ku siiye ku shukri oo ilaahay ugu shukri tabaaraka wa tacaala adigoona waxba haysanin bay hooyadaa ku dhashay adigoon qaawan oo hal mara qabin bay hooyada iyo aabbahaa ku dhaleen cilmigan aad baratay ee wax ku shaqaysanayso indhahan aad wax ku arkayso carabkan aad ku hadlayso gacmahan aad wax ku xisaabinayso maskaxdan aad ku fikirayso xisaabta aad ku hayso waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala baa ku siiyey الله بكون سخير تبارك وتعالى ولالك يو الدون يا آخر كلا بدن والله الدنيا ولا جتجي والله آخرها لا تجي نولش نبت أهيد بلا تجي ماشي اللي قد هي اللي قد باقي نقول يبقى لا تجي إلهي مصيرك يجا هو ناجي تبارك وتعالى ولالك يا مسلم كأهو وأنا ذا اللي بدو حندون يا إنا كله والله حولها جو الزكاة كبحسه وحن بركة أهين يا وحن بدنان أهين يا وحن خير أهين iyo waxaan caafimaad ahayn iyo waxaan inay ku bulaalaan oo ay ku bataan wallahi wa billahi wa tallahi saddexda magaca ilaahay loogu dhaartaan ku dhaaranayaaye waxaan wanaag iyo badnaansho iyo bulaal aan ahayn inaada wallahi aada ka qaadaynin oo zakada ma wax kalaaba zaka loo dhahaa ila annamaa wa ziyaada azakaatu lughatan annamaa wa ziyaada lughada waxaa la yidhahdaa
zakada waa wax bata oo bulaalo oo bata ayaa la yidhaahdaa marka xoolana kaaga yaraan mahayaan ilaahayna tabaaraka wa tacaala wax alla wixii aan xaqiisa aan laga bixinin wuu baaba'aa yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat wixii xumaan iyo ribo ku jira way baaba'aan sadaqadana way bulaalaan ayuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala xoolahaaga zakada ka bixi carruurtaadu ilaahay caafimaad kugu siin xoolahaaga zakada ka bixi ilaahay qalbigaagu iimaan kugu gelin xoolahaaga zakada ka bixi faqiirka aad siinaysa ducadiisa ayuu ilaahay qabriga kugu nuurin xoolahaaga zakada ka bixi way kuu badanayaan xoolahaaga zakada ka bixi ilaahay baa ku jeclaanaya xoolahaaga zakada ka bixi rasuulka waddadiisaad qaaday oo manhajkiisaad ilaalisay oo shafaacada nabigaad helaysaa maalinta qiyaamo sala allahu calayhi wasalam zakadaada xoolaha ka bixi xoolahaaga zakada ka bixi adiga reerkaagaa isjeclaanaya yacni waxaa isku noqonaysaan reer yaa badan xoolahaaga zakada ka bixi xalaal baad cunaysaaye xoolahaaga zakada ka bixi haddii kale cayilka aad xoolaha ku cayilaysaaye waxay u badan tahay siduu nabigu yidhi kullu laxmin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bihi hilib kasta oo xaaraan ku cayilay naar baa munaasib u ah hadhowtana waad ka tegi ka bixi xoolahaaga zakada maalin baad ka dhaqaajin doontaa dad aan mahad kuugu haynin ayaa dhaxlaya aabbahay baa nooga dhintay adeerkay baa nooga dhintay awowgay baa nooga dhintay dad baa gadaashaa ku raaxaysan doone war intaad nooshahay xoolahaaga waa waxaad xidhato oo khasaalada la geliyo iyo waxaad cunto oo musqusha la geeyo iyo waxaad sadaqaysato oo aakhare kaaga horeeyo inta kale adigu melihid bini aadamkuna maali ayuu leeyahay xoolahaygii xoolihiisama wax kaluu ku leeyahay ilaa intii aan sheegay hadda ma ahane sida uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam